وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaynu kusoo dhex jirnay dowradii bishii ramadaan lagu talagalay aynu ku akrinaynay xadiidkii ahaa 40 xadiiثan fi ducaaءi الwaarid can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam, 40kii xadiid ee ducooyinkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam. waxaynu soo gaarnay almajlis الxaadi cashar, fadhigii 11aad baan soo gaarnay. darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa alxadiiث الxaadi والثalaaثuun, xadiidka 11aad ayuu ka bilaabanayaa. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره. حديث كان حاورني يا صحابي الله أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أبو الدرداء وحيري قال رسول الله رسولك وحيري صلى الله عليه وسلم: كان دعاء داود صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي داود وحي أهيد كدعي سنجري ومركو الله سبحانه وتعالى وبريه ducooyin fara badan buu ku ducaysan jiray. waxaa ka mid ahaa allahuma inii as'aluka xubak. kaana ducaau daawuuda, ereyga kaana ah inta badan waxaa loo isticmaalaa waxa sida joogtada ah loo dhaho, amase shayga sida joogtada inta badan oo qaalibka ah ayaa loo isticmaalaa. walidaalika alimaam ibn cuthaymiin raximah llahu tacaala manduumatahu fi usuuli alfiqhi wa qawaacidah, منظومة أصول الفقه وكا ندميي وحيري: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. سيدا بدن وحيري كانضو وحي كنت مع دابور دهي دائم. مركا الدعاء وحي تصيصا النبي إنو آدو دائم يجري. كان دعاء داود، دعاء النبي داود وحيه صلى الله عليه وسلم وكدعي سنجري: اللهم إلهيو إني أنيق أسألك وحان كويدي سنيا حبك جعلك هذا كويدي سنيا. لبا تفسير بمركا لقليي إن إلهيو أنيق أن كو جعلاضه وقلبي جعل سوق لسيد وأن أديق كو جعلاضه ولو فسري. وحاك لغو فسري حبك إيايا يا إلهيو إن أدو جعلاته oo adoon la jecelahay aan noqdo. qofka ilaahay jeclaadana waa qof ilaahay uu raalli ka noqday oo liibaanay way adduunyo aakhiro. allahumma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa xubbaka jecelkaada iyo wa xubba man yuxibbuk, iyo jecelka cidda adiga ku jecel, amase wax kasta adiga ku jecel inaan jeclaado, qof kasta adiga ku jecelna inaan jeclaado. والعمل الذي يبلغني حبك، يا وحنك لو كويدي سنيا وحب العمل يا إن جعلاض عمل كامس شقده الذي عمل كاسو يبلغني إجارسين يا حبك جعل كذا وحي عمله وإجارسين يا إن أذو كجعلاضان إله وجعلي سوى. اللهم اجعل إله يوكي الحبك جعل كذا أحب إلي مثل لو جعل بدني هي من نفسي نفتي ذا يا وأهلي يا أهل كيجا iyo min almaai iyo biyaha albaaridi ee aadka u qabow, biyaha qabow wey. rawaahu tirmidi, imaamu tirmidi baa wariyey, waxasanahu waana xadiid xasan buu yidhi, warawaahu gayru. qaar culamada ka mid a xadiidka waa daciifiyeen, laakiin sida xooga badan waa xadiid muxuu ahaayey macmuul ah oo xasan ah. xadiidka marka wuxuu leeyahay ilaahayow muxuu ahaayey qalbigayga jecel soo geli oon adiga ku jeclaado. الله سبحانه وتعالى وحيري: والذين آمنوا أشد حبا لله، كوا إلهي رميي أيا كدرا جعلك أي الله جعلهين
jaceylka kuwa asnaamta ee sanamada caabudo oo ilaahay waxaan ahayn caabudo ay jaceylka jecel yihiin marka jaceylkaasi marka waa shay aad iyo aad qaali u aweeye marka xadiidku waxa weeyaan ducaa uu nabiyaasha ilaahay ka mid ah oo waliba ulul azmi ku jira oo ku duceysan jiray waay marka waxay tusaysaa inay tahay ducaa aad iyo aad u sareysa waay allahumma inni as'aluka xubbaka wa xubba man yuhibbuk allahumma ilaahayow inni aniga as'aluka waxaan ku weydiisanayaa xubbaka jaceylkaada iyo wa xubba man yuhibbuk iyo jaceylka cidda adiga ku jecel qof kasta oo adiga ku jecel inaan jeclaado iyo wal amal alladhi yuballighuni iyo inaan jeclaado al amal alladhi amalka yuballighuni igaarsiinaya xubbaka jaceylkaada allahumma ij'al ilaahayow ka yeel xubbaka jaceylkaada adiga aan ku jeclaado axabba ilaya mid liiga jeceyl badan yahay oon aad uga jeclahay min nafsii naftayda iyo wa ahlii ehelkayga iyo wa min almaa'i albaaridi iyo biyaha qabow marka qaybtan dambe waxaa weeyaan waa micyaar maxabatika lilaahi caza wajal inaad ilaahay jeceshahay maxaa lagu qiyaasi oo lagu miisaami karaa ama se lagu garani xadiidka qaybta dambe uu nabiga ku sheegayo hadday isqabtaan wax naftaada ay jeceshahay iyo wuxuu ilaahay u jecel yahay waxaa la rabaa inaad hormariso wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala jecel yahay laakiin haddaad naftaada ilaahay ka jeclaato xoolahaada ilaahay ka jeclaato ehelkaada ilaahay ka jeclaato macnaheeda waxaa weeyaan jacaylkii la rabay maadan gaarin rawaahu xadiidka waxaa weriyey الترمذي إمام الترمذي وحسنه وأنا حديث حسن بويري ورواه غيره الحديث الثاني والثلاثون حديث لبي صدنات عن عبد الله بن عمر وحالقوري رضي الله عنهما قال صحابي وحويري قال رسول الله رسولك وحويري صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إله يوم مصرف القلوب يا مصرف القلوب قلوب تأليه ركرق يو صرف الله أليحي أرق قلوبنا قلوب تيدا على طاعتك طاعة هذا يمحوها عبادة هذا دش هذا إلهي ويل رواه حديثك وحوري مسلم ورواه غيره حديثك مركب حديث عجيبة حديثك حوتصيا الله سبحانه وتعالى أضونك إنه قلبي سجعنتك هيو وإلهي سبحانه وتعالى صر وكيلي marka xadiidkan wuxuu nagu bixinayaa inaynu badinno alla bariga maadaama qalbigeena ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gacanta ku hayo suu raban uu ka yeeli karo inaan alla bariga badinno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisano inuu xaqa iyo diinta nagu sugo lidaalika ummuna caaisha radiallahu tacaala canha waxay maqashay nebigu aad ugu celcelinaya yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik allaha quluubta rogrogow ilaahay oo qalbigayga diinta ku sug waxay ku tiraahday ducadan baan aad u akhrisaa rasuulallah ee maxaad ugu celisaa bay tiri markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qalbiga laba far oo ilaahay muxuu ahay farihiisa ka mid ah ayuu ku jiraa ilaahay baa suu raba u rogrogaya yuqallibuhu kayfa yashaa يعني إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبه كيف يشاء النبي عليه الصلاة والسلام سيدي هل قلبي أو هل شخص إليه أي قلوب تبشر كودن إلهي ويين سبحانه وتعالى صورة ورغرغية مركا ما دام أي دعي كرتب إنه إلهي حق كالليحية أو باديودو مركا إلهي إنا ويدي حق يوصوي مركا حديثك وحليه اللهم مصرف القلوب اللهم يا الله يعني اللهم وحويان waxay leeyihiin culimada waxaa munaada oo xarfu nidahu ka xadfan yahay waxaana looga bedel qaatay miimtaas marka in ya allahumma la dhaho waxay waa luuqa shaada hal shicir baa lagu sheegaa oo nin shaacir uu yiri inni idha ma hadathun alamma aqulu ya allahumma marka allahumma ilahayow مصرف القلوب يا مصرف القلوب الله قلوب ترغرغو صرف قلوبنا إلهي وقلوبتنا أرغو أليحي على طاعتك طاعة هذا رواه مسلم إمام مسلم بحديث كوريي ورواه غيره غير كيسنا ويوريين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا